heshiiska maalgashiga dekada berbera waxa xukuumadda Soomaaliland ee uu galwadeenka ka yahay madaxweyne Siilaanyo ugu muuqda mid muhiim ah oo waqtiga loo baahan yahay dekada berbera waxay kamid ahayd marsooyinka ugu caansan mandiqada geeska Afrika iyo marinbiyoodka badda cas maantana waxay kamid tahay kuwa ugu dambeeya waa marin istiraatiiji ah Soomaaliland dhaqaalaheedana waa u budhig sida darteed xukuumadda waxa ka go'an in horumarin weyn laga sameeyo iyo maalgashi waxaanu u dooranay shirkadda DP World waxay noqotay shirkaddii ugu proposal fiicnaatay dekada berbera xukuumaddu mana kireynayso mana iibinayso hase yeeshee waa la maalgelinayaa dekadana inaga leh waxa la abuurayaa shirkad ayaynu wada abuuraynaa DP World maamusha hawl maalmeedka joogtada ah oo ay inaga dhaxaysa cad baynu guuleynaa inaguna waxaan leenahay hantida iyaguna way maalgelinayaan labadeena qolabana faa'iido doon baynu nahay waxaanu aragnaa heshiiskii ugu qiimaha badnaa marka la eego 7 kambaniya kaleba kii ugu fiicnaa baanu aragnaa heshiiskan xukuumadda Soomaaliland madaxweyne Siilaanyo xaq bay u lahayd muxuu ahaa inay gasho oo ay saxeexdo dastuurka qaranka waxa ku xusan si cad in xukuumaddu kireyn karto ama iibin karto hantida ay mas'uulka ka tahay xukuumaddii la doortay ummadda codkeeda iyo kalsoonideeda haysatay baanu nahay madaxweyne Siilaanyo waa madaxweyne si sharci loo doortay isaga ummadda isaga matala annagana isagana igmaday laakiin waxaan u doorbidnay in aanu talada badsano in aanu u muuqan rag wax qarsanaya inaanu shacbiga kalsooni gelino ayaanu u doorbidnay inaanu golaha wakiilada geeyno golaha wasiirada la soo dhigo muxuu ahaayay sida maanta ay golaha wasiiraduna ansixiyeen waxaan ugu geyn doonaa golaha wakiilada sharax badan baanu ka bixin doonaa hadii eebaydno waxaanu aaminsanahay inuu heshiiskaasi meel mari doono golaha wasiirada waxaanu soo hordhignay heshiiska waxa xukuumadda kala shaqeynaya khubaro caalami oo fara badan waxaanu gelinay adduun badan maadaama uu yahay heshiis culus oo luxdan oo muxuu hore Soomaaliland aanay khibrad ugu lahayn waxa hore noogala shaqeynayay shirkad layeen Nearas oo muxuu ahaa European ah waxa nagala shaqeeyay shirkad World Bank oo khubaro nagu kabay oo khubaro ah oo Nathan muddadii 2 sano iyo barkii u dambeeyay waxa haddana heshiiskan aanu ku soo kordhinay shirkad layeen Simmons oo Ingiriis oo kamid adduunyada looyarada iyo khubarada dekedaha ugu aqoonta badan waxa kaloo naga caawinayo iyagana aanu kireysanay shirkad aqoon-yahano iyo khubaro laya Alison and Young oo iyaguna Ingiriis ah waxaas oo khubaraha waxaanu lacagta u galeynay inaanu galo heshiis sugan cad oo aan muran badan abuurin isla markaana bad siman salka ku haya oo maslaxadeena ka turjumaya mashruucan oo horumarinta dhaqaalaha dalka ka ugu weyn aynu 25 sanadood galaya ayaa waxa maanta lagaga dooday kulkii muddo dheer laga soo doodayay golaha wasiirada oo gudidii maalgashiga dekada berbera oo aanu ka joognay imika halkan joogta ay soo hordhigtay dood iyo falanqeyn dheer oo golaha wasiiradu ka yeesheen sharaxaad ay khubaradu ka geysatay waxa si aqlabiyada oo aan hal diidan lahayn gacanta ugu taagay golaha wasiiradu ansixinta heshiiskaas